barxaddan midnimada waa mid ka mid ah waxyaabaha burburay ee dib loo soo dhisay kuwaasoo qaarna la xarig jaray qaar badanna ay noo dhiman yihiin xarig jarka waxyaabahaas oo dhan waxaa loogu talagalay isbuuca xurriyadda balse waqtiga oo kooban darteed ayay suurageli weysay dhammaan in la xarig jaro inta noo hartay maalmaha soo socda ayaan xarig jari doonaa waxaan maantay ugu talagalnay waxqabadkan oo ah qarash bixintiisu maamulka gobolka banaadir fulinta hawsha oo runtii aad iyo aad ay uga maanan yihiinna waa wakaaladda dhismaha soomaaliyeed runtii waxaan uga mahad celinayaa muddada aad u kooban oo ay soo bandhigeen waxqabad qurux badan howlaha kale ee u yaalla wakaaladda oo aan ka sugayna inay nala fuliyaanna way fara badan yihiin waxaan rajaynayaa haddii alla idmo inay sidaanoo kale ay ku guulaystaan shaqooyinka u haray oo aan rajaynayo inay mar dhow bilaabaan ama ay haddaba socdaan barxadda midnimada oo ah beer ay ku nasan doonaan dadweynaha gobolka banaadir iyo sidoo kalena daxiis u iman doonaan dadka danaynaya inay arkaan 60kii daartii midnimadu halkay ahayd soo booqdaan indhahooda ku arkaan maanta waa inoo dhammaystirantay alxamdulillahi rabbil caalamiin waa inaga daah furnay si rasmiya u furnay waxaan soo marmarnay fadhiyada kala duwan oo ina xasuusinaya mataanaynta koonfur iyo waqooyi iyo magaalooyinkii koonfur iyo waqooyi iyo mid waliba mid mataane ku tahay oo lagu ballamayo gabilay dhuusamareeb muqdisho hargeysa marka waxay tusaysaa 7 magaalood ugu yaraan oo koonfur iyo waqooyi oo ay dadku isugu imanayaan inay leeyihiin halkaasaan fadhiyaa waa xasuusin daayarteen iyo bulshooyintaba la xasuusinayo in midowgaasi dhacay midnahay ummadda Soomaaliyeed isu hilowday wada jir tahay 60 sano kadibna dib isugu soo hiloobayso wada hadallo midho dhal ah oo la isugu keenayo midnimadii dib loogu abqaalayo loogu yagilayo loo meel marinayo ay hadda socdaan madaxweynuhu hormuud u ahaa aan ka wada warqabnay haddana gudiyada farsamada hawlahoodii galayaan marka waa guul weeye 60 sano kadib guul taariikhi weeye waanu hambalyeeynaa gudoomiyaha gobolka banaadir gacantu ka geystay in dib loo habeeyo daartan waxa kale oo hambalyeeynaa General Bashiir maareeyaha hay'adda dhismaha iyo wasiir maareey iyo gudidii dabaaldega oo shaqo badan goobaha taariikhiga ah inuu dib u furnay ka qabtay waxay runtii xasuusisay maansadii maxamed ibraahim warsame hadraawi ee ahayd muqdisho iyo hargeysa muruqiya laxad kan kala maarmi karino waa daartii midnimaynu taaganahay midnimaynu halgamaynaa iyo wada jir Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha wada jirto